xiriirka kubadda cagta adduunka ee marka magacooda la soo gaabiyo loogu yeero FIFA ayaa ansixiyay in dhacdada weyn ee Mondiyaalka Adduunka amaba Koobka Adduunka sanadan 2022 lagu qaban doono magaalooyinka waaweyn ee waddanka Qatar adeegsiga aaladda tiknoolajiyada loo yaqaano SAMI Automated Offside Technology oo loo soo gaabiyo SAOT. nidaamka tiknoolajiga ayaa loogu talagalay in lagu sameeyo go'aano saxan oo degdeg ahi waxa uu meesha ka saari doonaa murankii faraha badnaa ee ka dhalan jiray offside-ka amaba garab dhaaf si loo dedejiyo waqtiga lagu gaaro go'aamada saxda ee offside-ka. aad ayay u wanaagsan tahay arrintani dhammaan waa diyaar ayuu yiri madaxa garsoorayaasha kubadda cagta adduunka FIFA Berlugia Collina oo loo doortay garsooraha ugu fiican dunida lix xilli ciyaareed xiriira ka soo bilow sanadii 1998 ilaa 2003 isla markaana soo qabtay finaalkii adduunka 2002 dalka Brazil iyo Jarmal. waxa uu beeniyay arrintan in ay jirto waxa uu sheegay in weli ay bannaan tahay dood ama in laga doodo go'aanadaasi. waan aqriyay waxa ku saabsan garsoorayaasha robotka ayuu yiri Berlugia Collina. waan fahansanahay in tani ay aad ugu fiican tahay ciwaanada wararka laakiin xaaladdu sidaas ma ahan. waxaa la sheegayaa in isticmaalka tiknoolajiyada adduunka oo kortay ay ka dhigayso in garsoorayaasha kuwa aan taxadar badan lahayn marka ay timaado xagga go'aan qaadashada, taasi oo mar dambe lagu soo kordhiyay aaladda VAR oo wax badan ka caawisay go'aanadii garsoorka. si walba ha ahaatee aaladan ayaa lagu xiri doonaa kubadda dhexdeeda isagoo duubaya xog 500 oo jeer ilbiriqsigiiba marka kubadda la laado. haddii uu offside tahay 25 ilbiriqsi kadib waxa uu fariin u dirayaa dhammaan garsoorayaasha ciyaarta halka taageerayaasha gudaha garoonka iyo kuwa daawanaya TV-ga loo diri doono iyadoo ku celisa qaab animation 3D si loogu caddeeyo in kubaddaas offside tahay ama ay ka madax bannaan tahay.